ما waa laga yaabaa ودعي كرتا maxay la dooqay leedahay عادي ayadoo aniga aan qabo oo anigu fanaan ahay oo heeso baa laga yaabaa فنان عادي xaaskaygu waxa waaye waxay jeceshahay heesaha suldaan seeraar taageertaa عادي fanaan Soomaali عادي maxay la waa nin fanaan ah waa fanaan qaali ah super star ah عادي aniga xitaa waan jecelahay heesihisa laakiin ayada markii laga farxiyo ahaan markii laga hadlaayo waa taageero weyn waa waliba waana loo ogyahay inaan loo ogeynaa darnaan lahayn waa ogyahay asaga عادي سودان سنة waa ogyahay dhigana waa ogyahay inay taageerto عادي ma jirtaa hees ay ka jeceshay Suldaan Seera heesihiisa oo aad ku aragtay inta badan iyadoo ama dhageysanaysa wallaahi inta ugu badan heesaha uu soo saaro iyada waa dooqeeda way jeceshahay hees walba Suldaan soo saaro jeceshay wallaahi waa saas un baa ku arkay way jeceshahay saas إلا هو سؤال مقطعي هسه أو سلطان سيرار صاروا ويجعشها ويدقيسته وأنا أمين سنتها وفنان ويجعشها واي لكن ومركه هسه إلا بهسان أي دقيسته أنتوا قبضن أو مقلع مدوا مرحبا داني لتشوقين نلا شوبا معن مالين إلا واتكم وقتي مقالة دوفتين مالي مدواتاس مدنو حمر بلا حرير تلدا وديو افتينكي حمر بلا أكاسا مرقا أنا حرير تلدا افتينكي ضيح بلاي عندها مرقا أنا يسويش وابسي تايبا سيفي عن ضيحو example جعل باقي قلي oo jacayl hadda kadis igu noqdo aanan filayn inuu iimaan doono sababtu u yimidna waxa waa qof shalay jeclaa ama gabar shalay jeclay ay dhibaatoon jirtay ay xakaari jirtay ay rafaadi jirtay anna aan fahmi waayo oo garan waayo inaan wanaajiyo oo jacaylkeeda xushmeeyo oo jacaylkeeda soo dhaweeyo oo shalay xumeeyay oo iska buriyay oo xiriirkeeda diiday baan maanta u xiiso maantana u xirxiranahay oo laanta noolaan karin qisada heesta waa sax waa qiso rasmi ah oo si rasmi ah u dhacday laakiin waa qiso markii ugu dambeysay laga badbaaday oo la isku xaal gartay aadiya dayaxo marka laga yimaado fanaaniinta hadda joogta fanaaniintii hore ama kuwii dhintay Allah u naxariisto ama kuwa nool yaad ku dayataa oo heesoo jecesha wallaahi aniga sida caadiga ah horta fanaaniintii hore haddaan ku dhaho fanka ilaa fanaaniintii hore maanta ama qaarkood geeriyoodeen ama qaarkood gaboobeen baan taageeri jiray haddaan ku dhaho dembi baan gala been baana sheegay soomaalida horta been bay yaqaanaan fanaaniinta soomaalida been bay intooda badan ku hadlaan oo yaqaanaan aniga dhallinyaraan ahay fankani waxaan u soo galay hob oo waan jeclaa mana ahayn wax aan jeclaaday yaraanteeda ku soo barbaaray oo ku soo koray oo aan ku soo weynaaday waa laga yaabaa dhallinyarada fanaaniinta ay fanaaniinta aabahood ama hooyadood yihiin laakiin aniga farac iyo aabba iyo hooyo awoow midna ima gelin awoohayeed faamilkayga waa dad culumo ah fankana markaan soo galay dhibaatadan kamar waa aqaana laakiin waxaan anigu shakhsi u jeclaaday inaan noqdo sida caadiyan na waxa laga yaabaa heesaha caadiga ah ama ha horeeyaan ama ha dambeeyaan waxa laga yaabaa inaan bartay wixii ka soo sukeeyay 2008 wixii ka soo dambeeyay laga yaabaa inaan sababtoo ah waxaan ahaan jiray wiil dugsigiisa iskoolkiisa lagu imtixaamo oo aanan wax kala garanayn sida caadiga ah oo shakhsigayga markaan ka hadlo ma aqooni marka aniga heeso fanaaniinta hore ma taageeri jirin mana teeda kale fan wadan anaga ma joogi jirin oo kuma soo korin wadani fankii hore oo maxaa la dhahay marka aniga soo kaco oo wax soo gartay ma ana arkin tiyaatar ma ana arkin fanaan heesaayo ma arkin fanaan wadankayga joogo ma arkin fanaan la xushmeynayo saa darteed maxaa la dhahaa ii sheeg iima suuragelin inaan falaak waa xushmeeyaa waan jeclahay waanaan xushmeeyaa heesahoodana maxaa la dhahaa ii sheeg way ku soo dhacaan dhagayga oo qaarkood baan wada aqaanaa laakiin sida caadiyan ma jiro marka intaas laga soo haro sida caadiga waxaan aniga jeclahay heesihiisa la foole
waxaan jeclahay boqolkiiba boqol oo ku raaxaystaa waxaan kaloo heesiisa jeclahay cabdi tahliil warsame laakiin ma arkin hadda ka hor cabdi tahliil warsame oo maxaa la sheeg tiyaatarka heesaya ma aanan tegin sidoo kale la fool waa la kulmay laakiin tiyaatar uu ka heesaya hadda ka hor ma tegin marka waxyaabaha suuragalka ah oo aanan yacni suuragalka noqon karin waxay tahay waxaan aniga hadda dhalinyaradan halkan joogto oo dhan boqolkiiba 80 aniga way taageeri karaan waana jeclaan karaan waana hadhow markay fanka ama fanaan noqdaan qofkood markuu fanaan noqdo uu dhihi karaa Dayax dalnuurshe taageeri jiray sababtoo ah maslaxan ku heesayo u jeedaa meel aniga leeyahay xushmeynayo u jeedaa meel maxaa lahaa fanku qiimo ka leeyahay oo anigu qiimo ku leeyahay wuu joogaa wuuna arkaa marka waxa sababi karo waxa aan sababi karin fanaaniinta hore aqoonsada ama maxaa la ii sheeg aan fankooda taageero sababtaas wadankeena colaado sukeeyo qax dhibaato markii madaxa la soo qaadayba waxa waa la kala qaxay marka fanba waxa laga yaabaa inaan waqti badan loo hayn aad baad u mahadsantay Dayax inta badan dadku waxay yiraahdaan fanka waxa laga dhaxlaa magac ee lagama dhaxlo lacag adigu maxaad ka aaminsantahay arrinkaas والله وسؤال صح فانك وصح مجح ولا قد حلا سيدو كلنا العق ولا قد حلا لكن وقفك قصة ميسن يقفك كتلا قالينه كسمية for example فنانين سومالي كم دحلان فنانين سومالي ولا جاي بين مجح سمية ولا جاي بين مجح وين ونأكسن إن السمية تذكر نقون صداعا لكن intooda badan markii ama maxaa la dhahay ilaahay nagu ma keena dib ku dhaco ama maxaa la ii sheeg wax ka qaldoomaan mostly fanaaniinta Soomaalida waa maxaa la ii sheeg waa dadkooda markaas kale loo soo dhaxgalo oo wax loo weydiiyo sababta intaas keenaysan waxay tahay qofku intuu magaciisa taagan yahay iyo qofka siduu u sameeysan yahay ama hadduu la taliyo leeyahay hadduu xaas wanaagsan leeyahay haddii isagu caqli badan yahay waa laga yaabaa maxaa yeelay dadkan hadda fanaaniinta ma yaro lacagta soo gasho sida caadiyanka lacagta fanaaniinta soo gasho fanaankii markaas heesayo ma yaro lacagta soo gasho laakiin waa fanaan iyo caqligiisa iyo fanaaniinta si iyagu u kala fikir badan yihiin bay wax meel u kala dhigan karaan ay dhigi karaan berito marka waxay ka qaldoomaan marka familkii wax ka qaldoomo marka maxaa yeelay fanaaniinta intooda badan shaqooyin kale ma qabtaan oo Soomaalida ah waa heesaan magac bay sameeyeen waxay yaqaaneen sida maslaxada looga heeso oo kaliya ma yaqaaneen sida shaqooyinka kale loo qabto markii laga reebo fanaaniinta aan maqlay inay America joogaan ayagoo shaqeeyaan iyo aan u maleynaa Europe ayagoo inay shaqeeyaan laakiin sida caadiyanka ee waxa caanka ee fanaaniinta Soomaalida ku yihiin waxay tahay inaanu shaqeyn laakiin ay heesaan marka intaas ay heesayaan oo xaraaradu heeso oo laga loo sacbinayo oo maxaa la ii sheegeen la leeyahay hebel intooda badan haddana dhibka ugu weyn oo jiro oo halkaasi waxaasi sababi karo ana hadda ku sheegayo waxa ugu weyn oo sababi karo fanaaniinta Soomaalida boqolkiiba 99 iyo bar waa dad balwad leh balwada isticmaalaan jaadka sigaarka waxa marka qofka markuu balwad leeyahay maxaa la isoo waxba maxaa la isoo fikir karin maxaa yeelay inta lacagta uu helo balwadiisu kaga fikiraya aniga kala hadda balwad mali xitaa shiishad wiligay afkayga ma saarin waa ka dhaaran karaa marka waxa maxaa la isoo aniga kala bari aan u dhihi karo maxaa la isoo waxbaan meel kala dhigan karaa waxaan u dhihi karo waxay tahay balwad mali maxaa yeelay fankan waxa aan lacag helo waxa laga yaabaa danahayga gaarka inaan ku dhameysto inta kalena haddii inay culays ugu noqoto laga yaabaa meel iska dhigo marka waa kaas Dayaxo ma jira caqabado aad kala kulantay fanka markaad soo galaysay ama haddadan aad ku guda jirtid wallaahi horta way jiraan caqabado aan kala kulmay waxay tahay aniga waalidkay walaalahay arin waxay ahayd ugu ku ah in aniga fanaan noqdo waxay arin la yaab leh oo ceeb ah oo familka kii ugu dambeeyay awoowe ayeeyo ilaa kii ugu yaraa oo walaalka ahaa waxay ku noqotay arin zaid ugu oo foolxun in fanaan noqdo sida caadiyinkana hadda fanka hadda dhalinyaradeenna horta fiiriya hadda dhalinyaradeenna ahaan baa fanki jeclaatay laakiin 5 sano ka hor fanka waxa laga aaminsanaa waa la yaqaanay
oo fanka qalad zaa'id laga aaminsanaa marka eedeynta ugu weyn waxay dul fuulayso hooyadee oo qofkii soo wacday see fanaan uno ma waalatay maxaa cunuga hal xiro waa qaar waxay yiraahdeen hal xiro qaar waxay dhaheen because aniga marka xoogaha waana da'deeda xoogaha saan aaday uga yareed oo hadda wixii 4 sano ka hor da'deeda si fiican zaid uga yareed intan marka qaar waxay yiraahdeen hal xiro qaar waxay yiraahdeen hal garaaco ul darteed ha uga haro fanka qof bumelo uu sameeyay qaar waxay hal quraan saar qofka oo qof waa shay ma fiyo wallahi ciire qaar waa sixran yahay qofkan qof iyo ma asefana oo noqon kare maxay leeyahay anaga familkeena wax ku cusub haddana aniga hooyaday xoogaa fantastic iska oo isda qof iska furfuran oo kaftan badan ah ayada markii waxaan dhigi jiray hooyo waxaan rabaa inaan fanaan noqdo kaas inta saan ifirsahela waxaan codka xun codkaaga foolxumadiisaan ka noolaan lahaa see adin fanaan yaa ku dhagaysanaya markaas waxaan dhigi jiray hooyo joog haddaan fanaan noqdo oon hees soo qaado hadhow maa leedahay maxaa fanaan noqota war maxaan horta ku dhahaa maxaan iska daayaa war waxaa fanaan noqon karta codba madiyid itusay marka dambe codkaaga horta bala arkay itus jaaniska marka ugu horeeyay oon helay oo kaga faa'iideysto waxaa waaye codka intaan tusay aan weliba muuqaal tusay muuqaalkina muuqaal YouTube ku jiro ninka baa hooyo mar way xanaaqdaa markii carada isku badata marka waxaan dhahaa adaa fanaan noqoy dhaado sababtoo adaa codkaaga tusi raahday haddana fanaanka waa noqday wassalaamu calaykum marka marxalado badan dhibaatooyin badan wax isku dayo badan oo iga yimid maxaa la isha familka gudihiisa markii dambe waxaa la isku raacay waxaa la yiri ninkan ka haraadiyay waa ka haraan dhahay ma waxay waa xanuunsada marka fanaanka noqday zaid waa xanuunsada marka waxaa quraan la isaal waxaa leeyahay ka maxaa la isheeg iska daa waxaan fanka sababtoo already marka saa zaid waa xanuunsaday weligaas aan xanuunsanay marka jooji hadana xoogaha soo baxdin nabraha la yiraahdaa zaid hadana korkii iga batay marka jiradii weyneed ka soo kacay marka waxaa leeyahay waxaan waa dadkii oo dhan afka kugu qabteen marka iska daaliir waxaan wax wanaagsan inay waa aragtimo aha waa hees Soomaa codkaaga waa dhimismo habeen iska fariis iska joog hay okay markaan wax badan intaanan joogin wixiina waa ii macaadeen oo maxaa yeelay waxaan arkay aniga adduunka dadka waxaan ahaa dabiicadeeda ka sameysnaan jirtay oo inay caan ka noqdaan jecel for example markaan mar hadda dhibaan ku qabo horta been sheegay waa ka gungaaray sababtoo hadda waxaan dhib aniga laba waa jeclahay midna waa necbaa midna waa jeclahay midaan jeclahay waxa waaye adduunka waxaan jeclahay inaan lagu eego inaan lugeeyo oo maanta dhan aan socdo oo maanta dhan meel kasta wareego badda inaan kaliya soo aado intaan gaari ama mooto soo qaadan lahaa waxaan jeclaa inaan iska soo baxo iska soo lugeeyo taas horta waa gabay ilaa aan sokor igu dhicin taagana sababtoo ah ma lugeyn karo taas dhibaatadaas waa igu dhacday labo inaan markaan wadada maraayo marka waxyaabaha aan jeclaan ku sheega waxaan jeclaa waxay markaan caan ka noqdo markaan wadada maraayo hay dayax fiicanta alxamdulillah in la dhaho oo dadka markaa magaalada maraayo oo aan noqdo waaw war waa lagu yaqaan dad ku salaamay inaan dhaho intaas aan caanimada biska doonayo laakiin hadda waxa waaye inta baxdo wadadan inta qabato ma gooyin kartid waxaa yeelay waxaa laga rabaa qancin wiilaa ku arkay gabar ku arkayso qof kasta inaa sawir la gasho qof kasta inaa qancisid maxaa yeelay aniga qofaan taageer maanta doo iga soo horbaxo waa kala la cashuumaa inaan aniga dayax xataa laga yaabo qofaan taageero marka arko inaan ka foqo laga yaabo waxaan jeclahay inaan qofkaas ama sawir la galo ama xasuus ka reebto ama aniga horta waa dadka kale horta waxaa laga yaabaa dadkeenan inay kala ham yihiin inay kala dooq yihiin aniga dooqayga waxaa qofka aan taageero waxaan jeclahay inaan saaxiib la noqdo waa han weynaha marka waxaa waaye dadka aan taageero maxaa la ii sheegay haddana inteena badan dadka inta Soomaalida aan ka taageerayay oo ka taageeri jiray hadda markaan dayax noqdo waa helay marka nuur xoogaha oo saas ila malaha dadkii ajaanibta marka damaciga jira marka waxaan leeyahay qofkan ajaanibka ah ama aktarka ah ama aktarada ah ama fanaanka ah ama noocaas ah ama stylishka ah waxa u baahan tahay adiga oo ku qanci karta dayaxo qofkan aad taageerayso waa ina saaxiib la noqotaa hadaysan ahayn qof ma leedahay fanisan ku akadib ma inta ku agmaro adiga qofkii dhan oo taageerisay oo muhiimka agtaada ka ahaa ma hadana iska deynaysa marka waxaan islahaa dhibay igu tahay marka ina aniga wax taageero ma fahanti marka waxaan ku keenay waxay tahay qof dad baa ku taageeraya dad baa ku xushmeynaya dadkii oo dhan u baahan tahay marka waxa laga yaabaa waqtigii dhan ama inta soo baxda aabada ku soo aadi lahayd oo ku dabaalan lahayd inuu ku dhamaado inta dadkii maxaa la ii sheeg markaas faniska ah inta qancinayso ku dhamaana adigana waa iska soo laabanay xaaladda saasay marka ay maxaa la ii sheeg ila gudboon tahay
aad baad mahadsantahay Dayax aha waa tahay daawadayaal wali waxaynu bartan kaga sii jirnaa barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta howlkan quruxda badan arkaysaan waa Ocean View barnaamijkan waxaad ka daawanaysaan telefishinka Soomaaliya Cable xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho waxa barnaamijka martii noogu ahaa idin sheegay Dayax dalnuurshe boqorka codka aad baa mahadsan boqorka codka waa ku dimbaaday fanaan Dayax dalnuurshe boqorka isteelka badana waaye hada boqorka isteelka loo dhigar sababtoo waxa jiraan fanaaniin iga style quruxsan waxa jiraan fanaaniin iga cod macaan xitaa haddaan anigu style quruxsanahay haddaan cod macaanahay ma jecli inaan isku tilma aniga inaan agteeda ku dhaho aniga horta maanta xoogaa waa dadka xishoodka badan ahaa inaan magaaladii lagu amaaro waa jeclaa laakiin horteeda xoogaa aad oo mahadsan tahay Dayax